الرحمن الرحيم waxaan arkahayay kooxdii ilmo ciyaar jecel qabyaaladaystayaasha ahaa oo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya baraanbur ku soo caayaya anigu kuma tilmaami kale hees wuxuu yiri ninkii laba baliyo ninaan isirkiisa aqoon awowgii halku ka yimid warkiisa ha eeginina ninkii laba baliyo ninaan isirkiisa aqoon awowgii halku ka yimid warkiisa ha eeginina wuxuu yiri nin calool galkaagii ogaa haatan saci roobay oo ab iyo isir ku yaqaan lagama ceebsha ilma ciyaar jecel 7 sano maqan yihiin ayaga dhanu niman cayraha ay ahaayeen cayray ka caroodeen marixaan ay u galeen haddana marixaan ay sheegtaan waa nimankaas labada aabale yaa nin calool galkaagii ogaa haatan saci roobay oo ab iyo isir ku yaqaan lagama ceebsha maanta waxay soo qaadeen waxay hees ku tilmaameen oo baraanbur ah oo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya ku caynayaan fanaanimaday sheeganayeen waxay noqotay xukunka nin daaroduhu markuu fadhiyo xukunku waa toosay qaranku waa toosay nin daaroduhu markuu xukunka fadhiyo qaranku waa toosay qaranku waa toosay nin hawiyahu markuu xukunka qabsado qaranku waa liicay qaranku waa liicay nin hawiyahu markuu xukunka qabsado qaranku waa leecay qaranku waa leecay daarood waa wareey qiil dambe maharin iyo fanaan lagu qaraabtaaye iyo fanaan lagu qaraabta waxaan leeyahay madaxweyne baariya geesi barakaysan xasan sheekh ilaah baa boqraye bararaqdan jooji mar labaad ma soo bixi lahaa hadduu bari ka soo jeedo ciyaar jecel iyo intii boog laheed ha iska buuqeen daaroodka bootaynaya haba baroorteen carbareera asagaa filada baaqi ku ahaane carbareera asagaa filada baaqi ku ahaane mar labaad mar saddexaad inuu soo baxaa waa run badankeeda mar saddexaad inuu soo baxaa waa run badankeed horta qabyaaladiinni waa la arkay adeer shalaa dhalatay waa la shubi jiray ilma ciyaar jecel waa laydin fahmay waana fashilanteen baraha bulshadana waad ogaateen maantay waxa ka taliya baraha bulshada waa beelaahawgii waa lala wareega gacan ku hayntii baraanburkii uu soo qaaday in ciyaar jecel hawada lagu cuno ilaah baa igu og dal xoreeye ay u shidan tahay meel kastaba birmada xasan sheekh udgoon badano birmada xasan la meel kasta ka shidan waaba la waayaba baraanburkii sharmabo siduu daaqada uga baxaa barbaamurka ilma maaragtay barraq jecel ayaguna daaqada uga baxeen qabyaalad waa waray waa laydin fahmay waana fashilateen beelaha weeyna waxaan leeyahay difaacda dawladnimadiina iyo sharafkiina iyo karaamadiina sideedana waxaanu fanaaneen maahan wiil walba oo koolle ka dhargaa waxa weeye maslaxu iska soo istaagaya barihii bulshada dadka mideeyay كليس كستابا مدحوينها قرنكو أفكا كتاغايا waxaan uga mahad celinayaa baraha bulshada beelweyn tahawiye beelweyn tahiraab sida aad gaashaanka dhiisha uga dhigteen oo aad barihii bulshada ula wareegteen aad iyo aad ayaan uga mahad celinayaa waxaan rabaa si gaar ah halkaan inaan uga mahad celiyo beelaha muldulood cismaan sida abgaal cismaan beesha u deejeen curadka muldulood salaan gaar ah beesha karin la hawiye curadka hawiye gugundhaba hawiye hawaadle gaal jecel habar gidir hadda maxaad ku taqaanaa habar gidir hiil u daa beesha shiiqaal dhammaantiin sida aad ula wareegteen Facebook YouTube iyo TikTokba aad iyo aad ayaan idinkugu mahad celinayaa sida aad waajibaadkiina u gudateen habar gidir annaga hana leefleefinina habar gidir uu kiciye dhulkii ka kiciye habar gidir oo dhan xasan sheekh maxamuud haduu war xasan oo annaga dhan hawiyaana iibso waa ku difaacayna hawiyo dhan haduu nagato habar gidir oo dhan haduu iibsado xasan sheekh waa difaacayna inta mukulaalaha ku dhagan yihiin wallahi billahi tallahi mukulaalaha iyo kooleystayaasha reer ooyaaya intay xasan sheekh maxamuud haystaan xasan sheekh maxamuud waa hogaamiyaha yaga qabiilana ku difaacayna warkaygu aniga waa cadiya dhulkii danta gudaha habar gidir laga kici war habar gidir oo dhan gado iibso waa difaacayna hawiyo dhan iibso
واكو دفاعينا ماري أما دميك لأنا أنغو يا نندارودو مركو حكم كفرديو قرانكو واتوسي نين هوياه مركو حكم كفرديو قرانكو واليعي قيل دان ووري والسلام عليكم ورحمة الله.